qaraxyo iyo rasaas toos ah oo caawa laga maqlay magaalada Muqdisho. Dhawaqa rasaas iyo qaraxyo ayaa salaadii maqribka inta lagu guda jiray caawa laga maqlay magaalada Muqdisho. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya meelaha ay ka dhaceen qaraxyada iyo rasaasta. waxaa hadda istuudiyaha igula sugan wariyahena Maxamed Abuukar Dabaashe oo macluumaad ku aadan waxa dhacay inoo haya. Maxamed. Faisal ma hasan tahay 12kii maqribnimo ama salaadii maqribba markii la guda gali rabay ayaa mar qura waxa la maqlay dhawaqa rasaas xooggan oo ka dhacaysay meel u dhow madaxtooyada Soomaaliya. sidoo kale waxaa daqiiqada ka dambeysay dhacaya qaraxa weyn baa ka dhacay meel u dhow isgoyska Juba oo la leeyahay gaari ayaa halkaa ku qarxay inkastoo faahfaahin rasmi aan laga haynin. daqiiqad kadib waxa ayna sidoo kale qarax uu ka dhacay meel aan saas kaga fogeyn jagboonta ciidanka oo ay ku leeyihiin sayidka xaggiisa. weliba qaar ka tirsan saraakiil iyo xubno aan la xiriirin waxay sheegeen in gaariga qaraxa siday uu usoo socday dhanka iyo sayidka xaggiisa uu ka yimid isgoyska sayidka waxaa yaala kontarool ciidanka gaadiidka ay ku baaraan oo marka gaadiidka la hubiyo keliya soo gudbaan. saraakiisha qaar Maxamed waxay noo sheegeen oo la xiriirnay gaari meeshaasi lagu celiyey oo hubintiisa ay socotay inuu meesha ku qarxay kadibna rasaasta ay xigtay sidaas. marka rasaasta ama iska horimaadka ugu badan wuxuu ka dhacay inta u dhaxaysa halka loo yaqaan dhagax tuur taalada ilaa iyo isgoyska sayidka. qaraxii kale ee dhinacan isgoyska Juba laga sheegay muxuu ahaa Maxamed? isgoyska Juba isla ayna waa qaraxii ugu horreeyay ahaa oo dhacayba. qaraxaas waxa leeyahay waxa waa qarax gaari inkastoo ilaa hadda xogo iyo faahfaahin rasmi ah aan laga hayn gaarigaas waxa uu ahaa iyo weliba halku ka yimid iyo meeshu ku sii jeeday iyo weliba khasaaraha ka dhashay intaba. laakiin waxaa la maqlayaa waxay tahay dhawaqa gaadiidka degdega oo hadda aad muddo in aad kaga shaqeynayaan wadadan dheer Makaal Mukarrama. Faisal arrinta kale xusuud mudan waxaa ka mid ah qaar ka tirsan saraakiisha qudhooda la xiriirin waxay noo sheegeen ciidamada ilaalada madaxtooyada ee koonfur-guduudda la yiraahdo ilinka albaabka ku sugan waxa la leeyahay laba ka mid ah waxa ay toogasho ku dileen rag hubeysan oo dariiska ciidanka watay oo qaar ka mid ah saraakiishan waxay sheegeen in kooxihii hubeysnaa ee dagaalamayay. marka waxaad moodaa dagaal wajiyo badan ahaa oo saacado badan qaatay inuu ka socday sayidka ilaa iyo inta u dhaxaysa madaxtooyada. marka ilaa hadda rasmi ahaan ma cadda in maaragtay rag hubeysan inkastoo iska horimaad uu jiray tiro saxa lama hayo meel si rasmi ah bartilmaameed u ahayd oo maaragtay ay wax ka dhaceenna ma cadda. marka laga soo tago gaariga checkpointiga ama kontaroolka lagu celiyey meesha ku qarxay. muhiimadu waa intaas jagboonta gaariyan ku qarxay oo ciidamadu ay hakiyeen marka laga reebo iyo dhawaqa rasaasto la maqlay ilaa hadda ma cadda faahfaahin rasmi lagama helin meel si toos oo dagaal kaga soconaya laakiin waxa socota oo la maqlaya waa rasaas. xogta kaliya ugu dambaysa aan helino qaar ka tirsan saraakiishan ka soo xigin waxay tahay in ciidamada madaxtooyada ku sugan la tilmaamayo in laba ka mid ah ay joogteen rag hubeysan oo dariiska ciidanka watay. marka weli dowladuna faahfaahin rasmi ah maysan ka bixin. xaaladdu waxaad moodaa in aad u qasan tahay oo wadooyinka qaar ee soo gala madaxtooyada sida wadada ahaa ceelgaabta oo kale la soo dhigay ay xiran tahay guud ahaan marka wadadaas dhan baa xiran Makaal Mukarrama qaybta madaxtooyada xaggeeda. hadda dhageystayaasha oo aan la hadlayno xaaladdu ay degan tahay rasaas dhacaysa iyo ma jirto laakiin guud ahaan dhaqdhaqaaqa laga soo bilaabo isgoyska sayidka wadadan soo hormarta baarlamaanka madaxtooyada horteeda dhinaca ambulatoriyada wadada u soo degta ilaa dhaqdhaqaaqeeda wax dhaqdhaqaaqa kama jiro. ciidan ayaana jooga meel kasta booliis iyo nabad sugid iyo military isugu jira. arrintan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo shirkii golaha wasiirada shalay dowladdu ay shaacisay in gaadiid qaraxyo sida ay ku jiraan magaalada Muqdisho oo mid ka mid ah noociisa uu yahay nooha loo ekeysiyey shirkadda ka shaqeysa garoonka aadan cadde ee Sahal ee dhanka adeegyada bulshada qaabilsan. dowladduna ay ka digtay qaraxaas gaariga saaran iyo gaari kale oo ay sheegtay halisteeda inay leeyihiin oo dadku ay ka feejignaadaan. marka digniinta dowladda ay shalay bixisay iyo dhacdadan caawa dhacday ayaa Maxamed waxa moodaa inay daba socdaan oo inay aad isku shabahaya. weliba xogtan wasiirka amniga waxa uu la wadaagay golaha wasiirada oo shirkii khamiislaha ahaa ayuu ka sheegay oo sheegay in macluumaad iyo xogo ay heleen nabad sugiddu ay la ogaaday in gaadiidka qaraxa sida Muqdisho ku jiro. marka waxaad moodaa xogtii oo hore dowladdu u sii sheegtay iyo
falkii caawa dhacaya laakiin markaan faysal si guud aan u cabirno sida caawa wax u dhacayan waxaad moodaa inay kaga duwan yihiin waxyaabihii ka dhici jira caasimada oo ay xilliyada mararka qaar la arki jira hotel la weeraro ama xarun si toosa loo qabsado marka waxaa ee dagaal muuqato kaga in dhacaya feejignaan badan ay jirto haddii ha control ciidan meel u yaalay baawur inta lagu celiyo uu maaragtay qarxay uu ku qarxayo Mhm. oo maaragtay hubin badan ay jirto ha waxaa kaloo maxamed xusid mudan ku dhowaad 5 bilood ilaa 4 bilood iyo bar qiyaastii magaalada wax ha qaraxa ha inaysan ka dhicin Mhm. oo dowladdu amniga ay aad u adkaysay marka la eego sida ciidamada kontaroolada magaalada Mhm. loogu badiyo oo maaragtay gaadiidka loo hubiyo Mhm. marka la eego aqoonsiyada meelaha qaar la isku ha weydiinayo gaariga aqoonsi aan wadan dib loo Mhm. celinayo Mhm. marka qiyaastii 4 bilo amni magaalada ay ahayd kadib caawa in xaaladan ay dhacday Mhm. weliba iyadoo dowladdu ay shalay sii digtay weliba wasaaradda amniga sii sheegtay si guud kale haddaan faysal oo sharxaad kale aan u sino dhegeystayaasha meesha hadda waxay ka dhacayaan marka laga reebo sayidka ilaa iyo tiyaatarka waxaa isticmaala waa gaadiidka dowladda oo oo qof aqoonsiyada oo ha aqoonsi dowladeed wato aan ama ahayn gaari lagama sii shacaba daaga ama gaari bi'ala midna ma maro marka waana meeshaas oo dowladda amniga aad u adkeysay caawa haddana wax walba ay ka dhacayaan rasaasti laga maqlaya inkastoo gaari qaraxa waday lagu celiyey sayidka oo qarxay haddana waxaad moodaa rasaasta in meelaha u dhow madaxtooyada hotelkan syl ilaa iyo xaruntii baarlamaanka agtiisa laga maqlay faahfaahin intaa ku saabsan iyo wixii khasaaraha ka dhasha si laaf ay nagala socon doonaan pagekeena facebooka iyo weliba dhanka websiteka waayahay dowladdu waxay ka tiraahdo iyo macluumaadka arrimahan kusoo kordha qaraxa iyo rasaasta muqdisho caawa laga maqlay bartayna xiriirka bulshada ee facebook waa facebook.com/risala.net ayaad kala socon doontaan iyo sidoo kale websiteka idaacadda ee radio risala .com wararkii ugu dambeeyay aan idinkugu soo gudbin doonaa xaaladda hadda waxay tahay mid degan wax rasaas ah oo la maqlaya ma jirto dhammaan goobihii ay wax ka dhaceenna ciidanka dowladda ayaa ku sugan oo maaragtay gaadiidka dagaalka dowladda ayaana lagu arkayaa